war degdega daawadayaal halkan waa bilan news waxaanu idiin soo gudbin doonaa dagaalka saaka ciidamada lafta gareen ay ku qaadeen gudaha magaalada baydhabo iyo sidoo kale khasaare xooggan oo la soo warinayo xilli dhinacyada ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan. ciidamada lafta gareen ayaa qabsaday qaybo badan oo ka mid ah magaalada baydhabo sida xogtu ay tilmaamayso, islamarkaana ay ka dhawaajiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka lafta gareen ee haatan markaasi gudaha u galay gudaha magaalada baydhabo. haddaba saa wax badan oga ogaano xaaladda magaalada baydhabo iyo guud ahaan isku horimaadyada halkaasi ka socdo waxaanu ka wareysanay cabdinuur maxamed. cabdiraxiin aad baad u mahadsan tahay arooryo suuban adiga iyo dhammaan daawadayaashaada. intaas kabacdi magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa xilliga kan ka soconaya dagaal aad u xoogan kaas oo u dhexeeya garabka left green oo hore si xooga looga saaray bartamaha magaalada baydhabo kadib markii halkaas isku kaashadeen ciidamada qaybahooda kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kalena dowladdu intaas kabacdi halkaasi ay geysay shiiqadan madoobaha ku gaba waayay gudaha magaalada baydhabo oo muddooyinka ugu dambeeya dhex joogay magaalada muqdisho. maantay magaalada baydhabo arooriyada hore saaka waxaa weerar ku ekeeyey ciidamadii left green waxaana si cabsi la'aana bartamaha magaalada u dhex maraya oo dhex mushaaxaya oo live uga jira facebookyadooda wasiirka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee garabka left green xasan cabdulqaadir maxamed iyo sidoo kale ugaas xasan oo ahaa afhayeenka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee garabka left green. arrintani waxay muujinaysaa in ay magaaladii goobihii caanka ah ay isku soo duubayaan si ay markhaati ugu noqoto inay ku sugan yihiin bartamaha magaalada oo aysan u dhicin in dood laga geliyo arrintaas. waxaadna moodaa inay kalsooni ay qabaan ay heleen inay sameeyaan tallaabadaas. arrintan waxay imaanaysaa xilli maalintii shalay saad og tahay taliyaha ciidanka booliiska gaarka uu ka hadlay afduub loo geystay haween baydhabo iyo sidoo kale digniino oo u diray salbalaar iyo afbalaar soo sheegtay ku sugan gudaha magaalada baydhabo. waxay sheegeen in mas-uuliyiinta dambiisha lagu keenay shiiqada madooba u weyn yahay ee ka saari doonaan. saqmaadi wuxuu sheegay in mar raba la isdul saaraa doonin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xaqiiqda dhabtaana loo gudbi doono. taliyaha ciidanka booliiska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gaashaanle sare isaaq cali isaaq madi ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socdaba ay la wareegayaan safar adagna ay u gelayaan siday gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada baydhabo. waa maalintii shalay markuu sidaas leeyahay laakiin maba daahin oo saaka gacan ku haynta magaalada way la wareegeen. hadda ayaa la sheegayaa in ciidamada dowladdu ay wadaan abaabul xoogan oo mar kale isku dayayaan bal haddii gadaal u riixi karaan ciidamada left green. waxay arrintan imaanaysaa xilli cabdiraxiinow hub aad u culus oo casri ah ay heleen garabka left green. maalmihii ugu dambeeyna la sheegayay in maamulka jubbalandna iyaguna ay barataarayaan oo saad ogeed oo dhowaan oo magaalada nairobi kulan kula yeeshay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland axmed ninka lagu magacaabo maxamuud sayid aadan. waxaana xilliga kan xaaladda u muuqataa in shiiqadan madoobaha ku gaba waaya magaalada baydhabo xamar saldhiga ka dhigtay ay maamulkiisu wajahayaan culays weyn. waxayna xilliga kan baydhabo ka taagan xaaladaad u kacsan. arrintu waxay maraysaa xilligan dadkii inay ka cabanayaan rayidka ahaa sida ay wax uga jiraan magaalada baydhabo. awalna ay cabsi badan ka muujinayeen maalmihii u dambeeyaba ay lahaayeen maamulku way ku fashilmeen wax ka qabashada baydhabo haddii aadna xal u heli karin fadlan ina dhaafa oo dhibaatadahana laka daayo. marka xaalku aad buu u cakiran yahay. waa tahay weerarka saaka ciidamada lafta gareen ay ku qaadeen magaalada baydhabo muxuu kaga duwan yahay weeraradii hore ee gudaha magaalada ay ku qaadeen haddana dib looga saara? wuxuu ka duwan yahay weerarku marka hore waxay ahaayeen tusaale ahaan in maamulka uu bilow ahaa oo la oran karay maamulka left green weli waa carcar, maamulka cusubna weli ma uusan xididaysan. laakiin mar haddii golihii wasaaradda dhiseen oo shiiqadan madoobe hadda maanta xididaysi kaloo laga sugaya uusan jirin in saacadan oo ku dhowaad dhowr bilood oo meeshii joogo ay ciidankii left green si geesinimo leh usoo galaan magaalada baydhabo waxay muujinaysaa inay koox jabtay iyo sidoo kale ciidan soo kabanaya ay kala yihiin. shiiqadan madoobe hore ayaa loo sheegay dadka deegaanku ma doonayaan. waxaa kaaga daran cabdiraxiinow nimankan weerar kastoo ay qaadayaan waa la ogyahay si cad ayay usoo qorayaan facebookyada ku qorayaan meel walbay dhigayaan muuqaaladii soo sheegayaan warkooda gambashow ma laha. wamaca daalika haddana cid ka hortegaysa iyo cid difaac samaynayso arrintaa ka hortegaysa ma laha. marka waxa weerarka iyo waxa difaacaba waa garabka left green. sida muuqatana waa lagu kala adkaada magaalada baydhabo iyo deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed haddii wax isbedelan wixii maanta ka dambeeya.
suurtagal ma tahay Aadan Madoobe in caasimadda maamulkiisa uu u wareejiyo magaalada Baraawe sifo uu markaas uga yaraado cadaadiska dhinaca lafta garan uga imaanaya ee Baydhabo ku haysto? marka laga hadlayo Aadan Madoobe inuu ka wareego magaalada Baydhabo waa jab kale oo soo gaarayo waa magaalada Baraawe janno ugama horeyso Baydhabana waa taa lagu haysto waxay doonayaan ayaa waxay tahay inuu isku dayo inuu taliska hore ee dowlad goboleedka lagu yaqaano uu ka guuro macnaheedu waxay noqonaysaa nin siyaasi reer koonfur galbeed oo degay magaalada Baraawe hadduu halkaas la aado maamulkiisa magaalada Baydhabo ayaa halka loo yaqaan maamulka koonfur galbeed marka si guud looga hadlana Sheekh Aadan Madoobe hadduu Baraawe tagay hadduu muqdisho ku shaqeeyaba ma ahan hogaamiye sax ah oo hogaami kara dowlad goboleedka koonfur galbeed indhihiisuna ma ahan kuwa soo socda ee waa kuwa sii madoobaanaya